Somaliland wax soo jeeda booliskaas karda adayga gabatay Somaliland maya gobolada kale haa laakiin Somaliland maya wiilasha waqooyi oo wiilal qadiyad iyo buuq iyo dagaal ku koray oo sometimes ka hadlaayo barabalem iyo hadalla xadaarad leh wiilasha koofureedna waa wiilal nabad iyo deganaansho ku koray sometimes kan xariis badan ka hadal badan ka ficil wanaagsan adi ahaantaada mushkaasan leedin waqooyi ah hada lacala ku aragto naxariis iyo yaani inuu ku ixtiraamayo inuu naxariis jacayl kula dhaqmayo maba aaminsan inay naxariis iyo jacayl ku dhaqmaan wiilasha waqooyi way adag yihiin niman adag waa haasaabo marka la dhaho kaleeto indhaha faraha ka gelinaya yaani hadaladooda saaid ay adag yihiin laakiin wiilasha oo yaani oo koonfur waxa waa wiilal jilicsan oo hadalla macaan loo naxariis badan way kala duwan yihiin wax badan ma noo sheegi kartaa wiilasha koonfur iyo wiilasha waqooyi waxay ku kala duwan yihiin wiilasha waqooyi iyo wiilasha koonfureed waxay ku kala duwan yihiin wiilasha waqooyi way yaani hadal adag yihiin wiilasheena koonfureed yaani way hadal jilic yihiin way naxariis badan yihiin adkaatay oo fogaat hablihii reer muqdisho ayaa maanta microphone lala dhex qaaday dhammaantood su'aalaha la weydiinay waxa la weydiiyey waxay wiilasha reer koonfureedka iyo wiilasha reer waqooyi amba reer Somaliland keebaad guursan lahayd kulligood war hal xataa tiri waa iska guursan lahaa ma jirto kulligood meeg bay noo qaateen waxay yiraahdeen war ragga reer waqooyigu ma ahan kuwa la fahmo waa qaar hadal qallafsan naxariisna aan lahayn bay yiraahdeen wiilashayada abooway abaayana dhahaya hadalka jilicsan leh ee naxariista leh baanu anagu rabnaa bay yiraahdeen waa anu waxa arki jira hablo ragga adag jecel baan arki jira anu waaba yaabanahay bade maanta ninka aamusane maxaa tiri ka qaad idib oo salaamaya hay salaam alaykum maxaysa raggaas inay dumarku jecel yihiin baan moodi jira anigu reer xamarkii waxay yiraahdeen nakata reer Hargeysa iyaguna haddii aad gabadh weydiiso wiil reer xamar ma guursanaysaa waxay ku dhahayaan warigaata waxaas wax la guursado maahan waxa nin abbo dhahaya wax hadal jilicsan way raggaas niyo iguma baxdaba iyaguna ku dhahaya reer Hargeysa reer Somaliland hadaa weydiiso ma faad marka halka waxa ii cad dhinac walba ina isku fahmi weyna qadaadweynay wadi isfahmi la'naay labadiina kala guursaday reer xamar iyo waqooyi guursaday isma fahmaan waa la kala lahjad duway waa la kala dhaqan duway ninkani wax kale u raadinaya oo gabadhan ka raadinaya inay ma taqaanaayay naxariista meel kale ka siiso iyadii meel kale ka raadinaysa isaga dhaqan kale u sita yani kala deegaan iyo kala bulsho iyo mantaqaanaay kala mentality baynu nahay ma faad marka ilmaada reeyal wadanka Somaliland iska taga ku dhahnay idi fahmayna anagu idi fahmayna naga tagay leena ka warrama saas dushana waa leen ka aarna salaam alaykum korkaas ka salaamina ha warwaay salaam qadaadweyne arqadaadina waa idi salaama saas ka warrama because habli reer Somaliland waxay leen kuwa waa jilicsan kuwana waxay leen kuwaas waa dhagax wixii madaxa isla gashay adiga gabadh reer Somaliland aata hadda ma guursan leed wiil reer xamar su'aasha ku weydiin bal commentiga ku soo qor commentiga hadda waxaad ku soo qortaa wiil reer xamar ma guursan leed may soo wada qore adiga gabadhay wiil reer Hargeysa ma taqaanaa reer Somaliland ma guursan leed may wax soo qoraysaa oo koobi aad baa idin salaamay muuqaalka like saaro soo follow